dowladda Puntland ayaa gelisay dadaallo waqti dheer qaatay dib u soo celinta mashruucii dayactirka waddada Garowe Gaalkacyo waxaa si rasmi ah tartanka daraas dayactirka waddada loo furay isbuucii hore iyadoo la filayo in dhowaan si rasmi ah loo bilaabi doono dayactirka waddada ayaa u qaybsan laba weji. wejiga koowaad ayaa ah Gaalkacyo ilaa iyo Xarfo halka wejiga labaad uu noqon doono Xarfo ilaa iyo Birta Dheer. waxaa si rasmi ah u soo dhammaaday naqshadaynta iyo sahminta waddada isku xirta Sheerbi iyo Dhahar iyo Xingalool. waxaa laami la saaray 17 kiiloomitir ayaa laami la saaray waddada Ceel Daahir Ceel Gaabo iyadoo weli ay socoto dadaalada isku tashiga ah ee waddada lagu dhisayo. sida aad la socotaan waxaa burbur ku yimid buundada waddada Qayaad Same kadib roobabkii xoogganaa ee guga. dowladda Puntland ayaa suuro gelisay in ay samayso waddo leexsin ah oo dhan 2 kiiloomitir waxaana hadda gacanta lagu hayaa dayactirka buundada iyadoo sidoo kalena buundada Midigar iyo goobo kale oo roobabku waxyeeleeyeen hadda gacan lagu wada daraasad lagu qiimeynayo heerka burburka waddada iyo buundooyinka. runtii arrintan ku saabsan buundooyinka iyo jidka dheer ee isku xira Puntland waxaa soo food saaray gabow iyo muddo dheer uu jiray iyo isagoo aan helin dayactirkii ku habboonaa ama qaybtiisu ay dhammaatay lifetimekiisa intuu jiri lahaa oo u baahan in mashruuca la bedelo. waxaa dowladda Puntland qaadatay inay samayso qorshe lagu xakameynayo inta mashruuc weyn oo jidka oo dhan lagu bedelo la helayo sidii dayactir joogto ah loogu sameyn lahaa goobaha halista ah oo u badan yihiin goobaha buundooyinka ah oo dooxooyinka biyo mareenka iyo togaga waaweyn dhex mara. waxaan rajaynayaa arrintaas oo culayskeeda leh inay Puntland ay u diyaar garoobi doonto haddii Ilaahay ka dhigo.